بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. meeshaan waxaan uga hadlaynaa axkaamu zakaatulfidri. zakaatulfidriga axkaamteeda. zakaatulfidri xadiidkii saxiixaynka wuxuu ahaa ibnu cumar uu soo saaray ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam farada zakaata alfidri. rasuulka ilaahay wuxuu farad yeelay zakaatulfidriga saacan min tamrin aw saacan min shaciirin, saac oo timira ama saac oo garbaa wixii markaa quutu qaaliba calaa kulli xorin, qof kastoo xoraha lagu farad yeelay, ow cabdin ama qof addoona, dakarin nin ow unsaa gabar min almuslimiina oo muslimiinta ah. sakadaas waa farad oo nabigu farad yeelay. wixii nabigu farad yeela waa wix ilaahay farad yeelo oo kale. waxaa lagu farad yeelay dadka muslimiinta inay saac bixiyaan. saac waxaa lagu qadaraa haddii la kiileeyo 3 kiilo meelahaasoo bariisku ka noqonaya. haddii la koobeeyana koobbaa asale waa 4 koobo muda, koobadan mudka la yiraahdo. waxaana lagu farad yeelay qof kastoo muslina, waana cunna waxaa la bixinaya saacan min dacaam. dacaam baa lacag lagu bixin mahayo, iyadaa ii fuudi, iyadan qofka u tuuraya waxba maahan. waxaa rabaa diintu say tahay inaan ugu dhaqanno. waxaana lagu farad yeelay dadka muslimiinta. waxaana nebigu ku cilayay inay tahay duhratun lisaa'imi min allaqwi warafsi. qofka sooman inay ka dahirayso wixii laqwi uga dhacay soomka dhexdiisa ee rafsi. waxay kabaysaa sidii sujuud sahwiga u kabto salaada nusqaanteeda, iyaduna wixii soomka nusqaan kaga gaaray ka kabaysaa. waducmatan lilmasaakiin, masaakiintana cunay u tahay. xadiid kalaa wuxuu ahaa nebigu inuu yihi ka deeqa kuwa dawaafahaya carrada marahaya wareegidda maantaas. wa amara an tu-adaa qabla salaat, waqtiga la bixinaya salaada ciidda intaan la soo aadin wey, oo markaasay fadli badan tahay. xadiid kalaa wuxuu aha qofkii sakadaas bixiya qabla salaat waa zaka maqbuula. qofkii salaada kabacdi bixiyana sadaqa caadiya noqonaysa. sakadaas marka waa soomkeenaa ku taagan, nusqaantii wixii bay kabaysa. aan la wada nimaano, qofkii yuwaada oo naftiisa iyo awlaadiisa ha ka bixiyo, waana saacaas qadarkeedu. waqtiga la bixinahayaana madhab shaafici waa rabadaanka dhexdiisa oo dhan. maxaa yeele ibnu cumar waxaa ka sugnaatay 2 maalmood asagoo ka dhimantay inuu bixin jiray. marka waa la ogol yahay, waa jawaas ahaan. amaa sunnadu waxaa weye salaada ciidda intaada soo aadin inaad iska bixisid, saasaa fadli badan. bacda salaad saacadiy noqonaysaa. bacda maantii kabacdi haddaa bixisidna qaday kuu noqonaysaa baa la yidhaahdaa. marka sakadaasna aan bixino, qof kastoo ka bixi wixii nafaqooda ku waajibtay naftaadaba, waana nusqaantaasay kabaysaa. haadaa wabillahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu.